بسم الله الرحمن الرحيم وصباح سبت بشا مي كوباغان تاي سغال سندكا 2025 تبinteena saaka waxay dul mari doontaa siyaasadda gobolka bariga dhexe iyo dhaqdhaqaaqyada taagan madaxweynaha dalka Mareykanka waligii ma fahmayo dawladda Iran saaxiibada ku hareeraysan ee talada siinayana iyana ma fahmayaan waana sababta Mareykanka uu wajigabaxa ula kulmay dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe dawladda Iran waxay adeegsanaysaa taariikh fog afkaar dagaal iyo waliba adayg la og yahay meesha uu ka imaanayo hasaatee u baahan in si qoto dheer loo darso laakiin dad ganacsato ah waligood sidaas ma fahmayaan sidaas waxa sheegay sargaal sare oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka dibadda ee nidaamka Israel waxana uu taxliilin qoto dheer ku sameeyay sababaha keenay dalka Mareykanka inuu fahmi waayo dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe la taliyaha sare ee dhinaca dawladda Iran u qaabilsan hogaamiyaha wadankaasi Ayatollah Mujtaba Khamenei waxa uu ku dhawaaqay in markii hore fursad la dayacay oo Mareykanka Iran gacanta u galiyay marinka Hormuz waxaan u adeegsan doonaa buu leeyahay sidii bamba nuclear oo kala ah sida darteedna waxa laga faa'iidayaa dhaqaalo Trump waa inaanu ku daalin inaan arintaasi gorgortan ka galno sheeko kale oo wadna qabad leh ayaa ka soo baxaya dawladda Iran ciidamada dalka Masarna waxa ay gaareen qaybo kamida wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta General Sisi ma waxa uu diyaar garoobay dagaal ka dhana dawladda Iran mase awoodi kara inuu dalka isu tagay Imaaraadka ka badbaadiyo weerarada iyo duqeymaha ka imaanaya wadankaasi Jamhuuriyadda Islaamiga ah warbixin ayaan idinkaga hayaa arintaas oo aan ku lafagurayaa ikhyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale eegi doonaa warar aad u xiiso badan oo ku aadan dawladda Saudi Arabia iyo waliba nidaamka Israel oo markii ugu horeysay aad u kala niyad jabay kadib markii dawladda Sacuudiga ay qaaday tallaabo aysan jeclaysan reer galbeedku maxay yihiin arintaasi qodobadaas ayaan ku faaqidayaa subaxnimadan barnaamijka aroornimo ikhyaarta ay nala socotay ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara halkaad naga daawanaysaan waa channelka Cabdicasiis Barrow sidoo kale waxaad nagala socon kartaan channelka Barrow Show oo aad ka helaysaan macluumaadyo ugu dambeeyay siyaasadda dunida iyo taxliilinta diblomaasiyadda caalamka fahmayn siyaasadda dawladda Iran halka rukumaheedu ay ku aasan yihiin iyo waliba sababta adayga dawladdaasi keenaya ee ciidamadeedu ay birlabka u yihiin sidaasi waxa yiri nin u hadlay oo hore uga tirsanaa hay'adda sirdoonka dibadda ee Israel waxa uu leeyahay ganacsatadu ma fahmayaan ragga afkaaraha diimeed ku qotama ee ujeedadoodu ay tahay inay adkaystaan iyo inay guuleystaan labadaba sargaalkan ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu noqday mid xalay warbaahinta gobolka bariga dhexe aad ula yaabeen hanaanka uu taxliiliyay sida uu arintan u soo bandhigay iyo waliba lafagurka qotada dheer oo ku aaday ama uu ku sifeeyay hanaanka dhinacyada isbahaystay ee dawladda Iran uga guuleysan waayeen dadku haddii ay haystaan waxay aaminsan yihiin isla markaana gomadooda ay dhulka ku aasan tahay waa adag tahay in nin sandareero lacageed noloshiisa ku soo qaatay daldalaal uu ka guuleysto sidaas waxa yiri odayd ilam oo hore uga tirsanaa waaxda la dagaalanka argagixisada ee sirdoonka Israel waraysi uu siiyay idaacadda la yiraahdo 103 FM ee nidaamkaasi ayuu ku sheegay Trump weligiis ma fahmayo nimankan waxa ay kooxda ku xeeranna sidoo kale ma fahmayaan waxa uu sidoo kale sheegay Trump iyo Iran in ay ku kala aragti duwan yihiin laba arin Trump iyo xulufadiisu waxa ay wataan aragti ganacsi iyo xisaab faa'iido leh halka Iranna ay leedahay maskax siyaasadeed oo diin lagu dhisay dulqaad iyo waliba alla bari muddo dheer jiri kara ay aaminsan yihiin ayuu yiri sargaalkaasi Israa'iiliga ah oo arintan si weyn u lafaguraya waxa uu sidoo kale yiri waxaan u dhownahay ganacsi hanti maguurta ah oo la tartamaya nin asalkiisa ka soo gooray Karbala uu aaminsan yahay waxyaabo fog oo ay adag tahaba dhaldhalaalka Trump uu aaminsan yahay raggaasi in la tuso dhaqaalaha uu tilmaamayo inay cuuriyaaminayaan
cunaqabataynta dhinac walba ka saaran dowladda Iran intaaba waxay u arkaan faa'iido ay nimankaasi doonayeen ayuu hadalkiisa u dhigay. sarkaalkan ka tirsanaan jiray sirdoonka Israel waxa uu sheegay in reer galbeedku ay aaminsan yihiin in cadowga lagu jabin karo cadaadis dhaqaale, xanuun military iyo kordhinta qasaaraha, laakiin sida uu qabo Iran sidaasi ma aha oo mana shaqayso. waxa uu leeyahay Iran waxay ku shaqaysaa aragti ku dhisan samir badan, dulqaad dheer iyo waliba alla bari jilaal badan oo mustaqbalka lagu gaaro buu yiri hadafka meesha loo socdo. ninkan mar kale ayuu sii hadlay waxana uu leeyahay qiyaasahan aas-aasiga ah kuma shaqeeyaan suuqyada Faris marka aad la macaamilaysa buu yiri dad aragtidooda dunida iyo taariikhdu ay ku xiran tahay, laakiin wuxuu leeyahay nafurid iyo adkaysi aan dhamaan hadiiba wax kasta lagu sii dhiso waa mid keenaysa nidaamka Israel aan ilaahdeen nidaamka jamhuuriyadda islaamiga Iran in gomodaha loo siibo. sidaa daraadeed Trump waxa uu leeyahay juhdi kasta uu bixiyo iyo dadaal kasta uu sameeyo dagaalka bariga dhexe wax libina kama keenayo. dhinaca kale sidaasi si lamida hadaladiisa waxa ay taabteen oo ay dulmareen ra'iisul wasaaraha Israel iyo nidaamka hadda talada haya. waxa uu leeyahay haddii la rabo dowladda Lebanon in laga guuleysto ma aha wiilasha qoryaha wata ee dagaalamaya inaan aragti siino, laakiin waxa ka gun dheer buu yiri ragga afkaaraha adag ay ka imaanayaan ee daldhiska dowladnimada ku nagaashiyaha dhulka iyo waliba difaaca sheekooyinka qadiyadaha ku salaysan ay ka imaanayaan. waxa si gaar ah u soo qaatay Walid Template iyo waliba Nabiix Birri kuwaas uu ku eedeeyay in ay yihiin ulaha ay ku dhagan baa yiri garaangaraha dadaalada siyaasadeedna ay tahay in aan laga fajakarin. hadalkiisa oo ahaa in Tel Aviv ay tahay in ay ka saarto jidka labadaasi mas'uul ayaa durbaba dhaliyaba yiri muran siyaasadeed oo xoog leh maadaama labaduba ay yihiin shakhsiyaad miisaan weyn ku leh siyaasadda gudaha ee wadanka Lebanon. Trump ayaa haddana lagu amaanay taageerada oo Israel siinaya. waxa uu leeyahay Israel maba jiri lahayn haddii uusan Trump gacan ina siin lahayn oo aynu ku guuleysan lahayn buu yiri dadaalada soconaya ee aan guulaha ku gaari karayno. waayahay haddaba su'aali waxay ka taagan tahay suuragal ma tahay hadalkaasi inuu yahay mid sax ah oo marka la is ag dhigo lacagta iyo waliba dadka afkaaruhu wata aanay kala adkaan karin, waliba dadka afkaaraha wata ay guuleysan karaan oo kuwa lacagaha haysta si kasta oo ay xilalka ugu nagaadaan oo ay doonayaan inay guula gaaraan aysan ahdaafta ugu dambeyn xaqiijin karin. dhinaca bariga dhexe haddii aan imaago General Sisi ayaa la ogaaday cutub ka mid ah ciidamadiisa gaarka ah ee cirka iyo waliba difaaca hawada in uu keenay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. qorshahan waxaa loo fasiray dagaal ka dhana dowladda Iran oo ay iminka Masar ku soo biirayso. warbixino la helay ayaa muujinaya ciidamo wada diyaaradaha Faransiisku ay sameeyeen ee Rafale oo masaari ah oo lagu arkay gudaha wadankaasi Isutaga Imaaraadka Carabta. xilli maalmihii ugu dambeysay dowladda Imaaraadku ay si ba'an u cambaareysay tilaabooyin la sheegay dalka Iran inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday gudaha wadankaasi Imaaraadka. haddaba xogaha la helayo oo ay qorayaan qaar ka mid ah wakaaladaha wararku waxay leeyihiin waxa la arkay ciidamo tiro yar oo ka tirsan dalka Isutaga Imaaraadka oo aad u feejigan isla markaana wata hub iyo diyaarado casri ah oo salaan siinaya madaxweyne Sisi oo uu garab taagan yahay madaxweynaha wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed Al Nahyan. arrintan dowladda Masar oo qudheeda ka hadashay Al-Shinaawi ninka la yiraahdo oo ah qabiir sare oo military ah waxa uu leeyahay ujeedadeena waxay tahay inaan kaalmo siino wadankaasi laakiin ma aha inaan dagaalka ka qayb gali karno. sawirada ay sii daysay wakaaladda wararka Isutaga Imaaraadka Carabta ee WAM la yiraahdo ayaa la arkay heerka diyaar garowga ciidamada dadaalada lagu joojinayo awoodaha howlgalka
iyo u diyaargarowga caqabadaha amni ee kala duwan ee wadankaasi. dhinaca kale noocyadan ciidamada ee la soo bandhigay ayaa waxay yihiin kuwa diyaaradaha gaarka ah ku duula iyo waliba tiradooda saxda ah oo aan wali la sheegin. hawsha rasmiga ay ka hayaan wadankaasina lama sheegin. waxa la yiri ciidamada waxa la yiraahdaa Mifraza ayaa dalkaasi Masar looga yaqaan cutubkan. waxay leeyihiin shaqooyin gaar ah waxaana kamid ah ilaalinta madaxda, taageerada howlgallada gaarka ee la rabo inay bixiyaan tababaro qoto dheer iyo waliba inay sameeyaan howlgallo sare. la taliyaha kulliyadda hoggaanka ciidamada Masar General Mohammed Al-Shinawi ayaa sheegay in joogitaanka ciidamadaasi aanu ka dhignayn in Masar ay dagaal gashay balse uu yahay taageero iskaashi walaaltinimo ku dhisan oo la siiyay wadankaasi. laakiin ilaa iyo hadda waxaa la arkay 13 kamid ah ciidamadaasi duuliyaasha ka tirsan yihiin. waxaana sidoo kale falanqeyn la sameeyay lagu ogaaday in xitaa ay wataan diyaaradaha Rafale ee dalkaasi Masar ay ka soo iibsatay wadankaasi la yiraahdo Faransiiska. 30 diyaaradood oo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in halkaasi la geeyo oo kuwaasi oo lacag fara badan ay ku kacayaan sida ay tilmaameen. ilaa iyo hadda doorka ciidamadaasi ma cadda inay dagaal galayaan iyo in kale sida qubaradu ay goor dhaweyd u sheegeen saxaafadda oo arintan si gaar ah u la faguraysay ilaa iyo xalay. la taliyaha Mujtaba Khamenei ayatullaahiga wadanka Iran waxa uu leeyahay Mareykanka sheekooyinka ciyaarta waa inay ka gudbaan wadankan Iran. marinkan Hormuz markii hore dayacay hadda waxay noqonaysaa meel aynu ka faa'iidi doono lacag fara badan. haddii si kale loo dhigo waa wadan bamba nuclear haysta oo la leeyahay ka tanaasul, taasina ma dhacaysa ayuu leeyahay. la taliyaha sare ee ka tirsan baa leeyahay hoggaanka sare ee dalka Iran ayaa sheegay in xakamaynta marinka Hormuz ay la mid tahay dal leh booliiri bamba nuclear taasoo muujinaysa muhiimadda istiraatiijiyadeed uu leeyahay halkaasi. la taliye Mohammed Mukhbar oo ah la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa jimcadii xalay ahayd sheegay in Iran muddo dheer ay dayacday booliiri faa'iidada juqraafiyeed uu leeyahay marinkan. waxa hadalkan ka sheegay muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka Iran ee Al-Mehra la yiraahdo. marinka Hormuz waa fursad qaali ah oo la mid ah bam atomiga ayuu hadalkiisa ku daray. wuxuu intaa raaciyay in hal go'aan lagu sameyn karo dhaqaalaha dunida oo dhamaantiiba isla markaana furaha gacanta ugu jira dawladda Iran aanay ka tanaasuli karin maadaama Hormuz uu yahay marin muhiim ah maraakiibta iyo shaxnadaha caalamigana ay marayaan. arintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay gelinkii dambe dagaalo ay dhaxmareen dawladda Mareykanka iyo sidoo kale ciidamada wadanka Iran, taasoo lagu soo warramay markii ugu dambeysay dagaalku inuu si degdeg ah u istaagay, Trumpna uu ku dhawaaqay in uu nabad raadinayo. arrimahan oo dhan waxay sii kordhinayaan baa leeyahay xiisadu in aanay si degdeg ah faraha uga bixin. laakiin Iran waxay muujinaysaa kaarar kala duwan oo cadaadis inay miiska soo saarayso. ugu dambeyntiina wargeyska Diyaacad Ahranut ee ka soo baxa Israel ayaa saaka qoraya in Tel Aviv ay niyad jab weyn ka qaaday tallaabo ay adeegsadeen dawladda boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan dhaxal sugaha wadankaasi Mohammed bin Salman oo dhabarka jabiyay Trump sida hadalladu ay tilmaamayaanba. dawladda Iran waxa la yiri nidaamka Israel waxa uu horta aad uga walaacayaa heshiiska iyo waliba wada hadalka lagu yaabo in uu soo gabagabeeyo colaadda bariga dhexe u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran. waxay sidoo kale aad uga murgayaan baa la yiri qorshaha Turkiga iyo Pakistan ay garwadeenka ka yihiin haddana ay Qatar ku biirtay oo xalay wasiirka ama ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi Mareykanka DJ Vance. hasaate wax arinta kale oo murugada leh oo Israel wargeyska uu tilmaamayo inay ka walaacayso waxa kamid ah in dawladda Sacuudigu ay diiday in dekadaheeda
iyo waliba inay isticmaalaan saldhigyada ciidamada cirka Sacuudiga ee Mareykanku ay halkaas ku leeyihiin ciidamada Mareykanka si ay howlgal uga fuliyaan marinka Hormuz. Arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli xiisada kulushahay Sacuudigana uu qaatay go'aan dowladaha qaar ay ku tilmaameen mid geesinimo leh hasaatee Trump la leeyahay aad buu uga naxay in Mohammed bin Salman uu hadalladaasi la hor iman karo. subax wanaagsan sabti suuban iyo waliba maalin saxan baan idin leeyahay khiyaaray ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara maanta iyo tabinteena waa neesay socon doontaa maxay idin la tahay go'aamada Masar kan Imaaraadka hadalka ka soo baxay mujtaba qamani la taliyihiisa uu leeyahay kama tanaasuleyno marinkan oo fariiq caalamka inaga gacanta ku hayna iyo waliba hadalka la xiriira Trump inaan wali fahminba nimanka la yiraahdo Iran soo dhawaada